inagoo ah ururada ida SWDC, SWA, SIDO, SCSC, ururada bulshada ee ku ra'yiga ah iyo inta danaysa wanaagga Soomaalida waxay fariin u dirayaan madaxda qaranka iyagoo dareensiinaya walwalka ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee murugsan. Wadanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo aad u adag, haddase wuxuu dalka ku socdaa soo kabsi wanaagsan. Saas daraadeed, ururada bulshada isku ra'yiga ee kor ku xusan waxay kula talinayaan madaxda qaranka arrimaha hoos ku qoran in loo daneeyo shacabka Soomaaliyeed oo ay abaaraha iyo nabadgelyo la'aantu hareeyeen, in laga fogaado wax kasto horumarka dimuqraadiyadda dadka iyo dalka waxyeeleyn kara, in madaxda qaranka oo ah kuwa lagu aaminay aayateenka dalka iyo dadka ay ka soo dhalaalaan doorkooda helaan xal siyaasadeed oo wadanku ku dego, in madaxweynaha oo ah qofka aad u daneeya nabad ku wada noolaanshaha dadka iyo xasiloonida dalka ahna ilaaliyaha dastuurka ee aan hore uga codsanay inuu arintan si toos ah ugu soo dhaxgalo uu sii wada dhexdhexaadinta guul shacabkana wanaagsan uu ka gaaro, in la soo dhaweeyo lana qadariyo samwadayaasha ku howlan dhexdhexaadinta iyo xasilinta xaaladaha cakiran. Ugu dambeyntii, ururada bulshada rayidka ayaa lagu yiri qoraalkan waxay ummadda Soomaaliyeed ka dalbanayaan inay baryada Alle badiyaan si loo helo xasilooni iyo nabadgelyo waarta.